abtirkaasi naga reeba Itoobiya waa ka mid nahay laakiin dawladda deegaanka Soomaaliyeed la yiraahdaa waxaan ka cudurdaaranaynaa magacii dawladda deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya in laga reebay oo abtir aan Itoobiya hadda looga dhigay dawladda deegaanka Soomaaliyeed kaliya la yiraahdo hadduu sida u fiican yahay fatuurada ninkii Ilaahay wax siiyo fatuurada ogsoonow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن وزير دكتور عيسى كايت وزير كاملها دبدا جمهورية سوماليلاند مدن وزير عبد الرزاق إبراهيم وزير كجديدك جمهورية سوماليلاند وزير أحمد محمد وزير كحييك داخلية دولة الديان الصومالية وزير عمر آدم وزير كحييك وزارة وحرشة دولة الديان الصومالية xildhibaanada agaasinada bahda saxaafadda mudaniya iyo marwooyin marka koobaad subax wanaagsan mar labaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado xafladda daafurka shirkadda basaska casriga ama gaadiidka isu socodka casriga ee ka samaynayso saddexda deegaan ee xuduudda kala jartay dadka walaalaha wada degan yihiin Puntland, Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda deegaanka Soomaalida waxaan ka cudurdaaranaynaa magacii dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya in laga reebay oo abtir aan Itoobiya hadda looga dhigay dawladda deegaanka Soomaalida kaliya la yiraahdo si la mid ah deegaanada dalka Itoobiya marka waxaan moodaa walaalada reer Soomaaliland inay magacii hore haystaan oo weli leeyihiin dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya abtirkaasi naga reebay Itoobiya waa ka mid nahay laakiin dawladda deegaanka Soomaaliyeed la yiraahdaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan dhiirigelin iyo bogaadin siinayaa dhalinyarada soo qaamay in adeeggan ay siiyaan xilligii loo baahnaa dadweynaha Soomaaliyeed maadaama ay tahay inay isu socdaan danaha badan ka dhaxeeyaan siyaabo badan xiriir u leh oo isleeyahay adeeggani wuxuu qayb weyn ka qaadan doonaa inuu fududeeyo isdhexgal bulsho dhaqan dhaqaale iyo mid siyaasadeedba waxaa sidoo kale cashar fiican ka bartay habka ay u soo agaasimeen xafladani dhalinyaradaasi isu xilqaatay inay ganacsiga sameeyaan xiriirka dhow ay la sameeyeen dowladaha gaar ahaan xafiisyada ay bahwadaagta yihiin ee shaqada ka dhaxayso taa marka waxay tusaale cad u tahay in uusan kala maarmin ganacsiga iyo siyaasadda gaar ahaan markaynu bariga Afrika joogno marka waxaan rabaa inaan dardaaran siiyo Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda ay khusayso dardaaran siiyo ganacsatada ama dhalinyarada isu xilqaatay inay sameeyaan adeegga basaska dardaaran anagu dabcan dawladda deegaanka Soomaaliland aan qaadan doonaa hadda reer Soomaaliland waxaan leenahay dardaaran waxaa weeye shirkadaasi dhinacan kale waan idin leenahay noo xafida ganacsatada dardaarankan siinayna waxaa weeye wardadkiina u tura oo sidoo agaasiga sheegay iska howlad badan yihiin dadka gaadiidleyda dadka u tura bulshadeena waa dad sabool ah insha Allah anaguna xagga laga wixii taageerada looga baahan yahay firin doona ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabay doonaa haddii aan leeyno xilligii hore intuusan adeeggan casriga iyo jidadkan iyo gaadiidkan soo gaaray dadka reemiyiga ah gaar ahaan gobolka iyo gobollada deegaanka Soomaalida dadka soo jeedo yaa waxaa la sheegay in reemiyiga baa gaari soo raacay baa leeyahay marka gaari la soo qaaday wuxuu ka yaabay meeshuu muddo dheer u socon jiro degdeg ugu geeyay marka markuu meeshii tagay uu yaabo gaari kadib soo gaaray meesha u socotay iyo warnimayo haddii uu sidan u fiican tahay fatuurada waxaa la yidhahdaa gaariga uu soo raacay bas hadduu sidan u fiican yahay fatuurada ninkii Ilaahay wax siiyo fatuurada ogsoonow ninkii Ilaahay wax siiyo transportation sector ugu waleey aad baan maasantii شندبغل يا هو تعب في عن شندبغل عولو ها لا عيدي الله الله يوم يروبو نما شيء النسي السلام عليكم. عليكم السلام. سوينا كي توكان كشنيدي يبين يا معها. هاولا. والله لو واحد سميسا شنيدي بيجا دماتي شنيدي بيجا قاضي واحد يسوي بتاع جلان أو شنية. دوية يسوسر. هي ولا هي. أنت لعبت نسد ما فوق صدري سد كيجو. هاد الدوية كيجو.
walaal maxamed baa walaal waa isagii ma inankii dhaweeyey shinnida loogu soo dhiibay baa tahay haa walaal waa inankii halkeen kuugu keenaa walaal beertii ilmo mahad soo garan maysid si fiican beertii ilmo mahad igu keen midda kale waxaan kaa codsanayaa inaad xabad gaas samgaastii shooladii hore igu soo qaado ka walaal ma tii yareed mise tii waaweyneed maya tayaryar lacagtana saad ka eego saad baan kugu soo diraya maasha allah mar haddaad aad soo dheeraysay shinnidii iyo gaastii inaad ii keentay shaah baynu ku tuuranayna waad ila joogaysaa dhaweeye intuu kuu soo dhacaya dee intuu nafarku soo dhacayo haa shaaxaan ku sugin moobilkaagana iska furo naasiri waa kalaa maasha allah wallahi waa walaashii alla waa walaashii oo hargeysa timi maya walaal hargeysa kulama joogo maraykan baan kaala soo hadlayaa oo lambarkaad sidata miyaanu telesom hargeysa aanad igala hadlayn maya anigoo halkaa jooga ayaan isticmaalayaa nambarkayga telesom waxaana ii fududeeyey adeegga waafi oo maraykan baad joogtaaba maasha allah walaal anigu beertii baan qodayey in yar baa ii harsanoo intaana imka galabtaan dhammaynaya bal aan kula eegay video callka ii fur haa internetka kuu furaaba waa kaadhigii daaqaya beertiina in yar baa ii harsanoo haddaan dhammaynaya dibidii baan ka yar fulo yar maasha allah maadaama maanta shaqayseen anigaa shaahayna idiin soo dirayaa saadna waan idinku soo dirayaa isla imika alla walaal waad mahadsantay saada oo ma lacag baad noo soo diray haa anigoo halkan jooga oo ma gurigaaga adoo joogaad noo soo diraysaa hadda ka eegta maasha allah allah ku casimo walaal waad bartaasaad naga casintay maasha allah qodha iyo xerada iyo xiniinta wataa soo gashay lacagta maasha allah balde gurigeedii bay iga soo dhex dirtay saacadda laga bilaabo lacagtii dhaweeyaa waan ku kordhiyey waa si wanaagsan inaad haa waa ku kordhiyey ma ilaa maraykan bartaasay naga casintay ayaa saadka la isku soo dhex marinaya taaj bay noogu soo dirtay lacagtan waafi waa dhag bartaasay naga casintay maasha allah markaa calaf waa la cunaaye waa kuu diraya aniga adna qabso